kulan waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha goorahan oo kale ayaynu ka ambaqaadnaa halkan waxaynu kusoo qaadanaa waxyaabaha isboortiga ka cusub ee maalinkaasi taagan maanta barnaamijka intiisa ugu badan waxaynu kusoo qaadan doonaa tartanka Euro wareegiisa 16 ayaa maanta lahana qaadaya iyadoo sidoo kale kulmo xiiso badan maanta tartankaasi laga ciyaarayo falanqeynta kulamadaasi iyo sidoo kale wararka suuqa maxaa ka cusub kooxda ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa farsamada iyo kaamiradu waa Fuad Maxamuud Maxamed Cabdulqaadir Xuseen ayaan ahay hadii aynu ku bilawnana leega 16 tartanka Euro 2020 ayaa maanta bilaabanaya iyadoo kulamo xiiso badan caawa la filayo in tartankaasi laga ciyaaro kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhaxeeya xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga oo ciyaarayo Talyaaniga hal xidigo muhiim ah ka maqnaa oo yacni shaki laga qabay waana laacibkooda kabtanka u ah ee lagu magacaabo Giorgio Chiellini kaasi oo dhibaato muruqa ah qabay laacibka ayaan caawa u badan tahay in kulankan xulka Talyaaniga ay heli karto Azzurri ay u badan tahay in dib ay ugu yeerto ciyaartooydeedii dhammaan kulankii Wales oo qaarkood inta badan la nisiyay waxaana sidoo kale xulka Talyaaniga qaab ciyaareedkiisii fiican laacibka Marco Verratti dib inuu u sii wadan karo ay macquul ay tahay kulankan xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga caawa wuxuu wajahayaa Austria waana wareegga 16 tartanka Euro marka xaqiiqooyinka kulankan hadii aynu fiirino kulankan taariikhaha xulalkan isku leeyihiin 30 kulan ee ugu dambeysay ee Italy waxa mar laga badinin waana rikoor qaran oo 82 sanadood soo jiray Talyaaniga waqti fiican oo ku jira leeyahay Azzurri ayaan u tartamaysa inay badiso kulankoodii 12aad taasi oo noqon karta rikoor cusub la leeyahay kooxda Roberto Mancini ayaana 11 kulan badisay 11 koodii ciyaaroodii ugu dambeysay waxaana xulka Talyaaniga gabi ahaanba waqti fiican oo ku qaadanaya waqtigan kubadda cagta waxay aadeen xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga 17 saacadood 35 daqiiqo iyadoo aan wax gool laga dhalinin tan iyo markii Danny van de Beek uu shabaqoodu soo taabtay Netherlands ciyaar ku soo dhamaatay gool oo ka tirsaneyd National League Talyaanigana ama Austria taariikhaha ay kulankan Talyaaniga ay ku leedahay hadii aynu fiirinana waxa ay guul dareysteen laba kamid ah leeyahay saddexdii jeer ee ka soo muuqdeen tartan caalami ah wareegga guruubyada waxayna 2008 iyo sidoo kale wareegga 16 xulka qaranka kubadda cagta Austria ayaa laga badiyay afar kamid ah lixdii kulan ee ciyaareen London tartamada oo dhan iyadoo oo booqashadoodii ugu horeysay caasimada si London 7 gool iyo waxba lagu xasuuqay xulka qaranka kubadda cagta Austria kulan saaxiibtinimo ahaa waxay ciyaartaan ee dhacday 1973 Austria waxa lagu soo xaqaliyay 7 gool iyo waxba kulan saaxiibtinimo ee England Wembley kulan ka dhacay ee la ciyaartay laacibka David Alaba wuxuu abuuray leeyahay 9 fursadood heerka guruubyada ugu yaraan 4 ayuuna ka badan yahay leeyahay ciyaartooyda kale ee xulka qaranka kubadda cagta Austria marka Talyaaniga iyo Austria si kastaba ciyaartooda caawa waxay soo dhacaysaa 10 fiidnimo xilliga Soomaaliya kulan kale oo xiiso badan jiro waxaana u dhaxeeya sidoo kale xulka qaranka kubadda cagta ee Denmark iyo Wales labadan xul oo xulalka yani gruubyada tartankan markay ciyaarayeen ka kala tirsanaa groupka A iyo groupka B oo kale xulka qaranka kubadda cagta ee Wales ayaa kaalinta labaad kaga soo baxay groupka A halka xulka qaranka kubadda cagta ee Denmark uu qudhiisu groupka B kaalinta labaad uu kaga soo baxay waxaana xulalkan ama gruubyadan koowaad kaga soo baxay Talyaaniga iyo sidoo kale Belgium oo qudhiisu groupka B kaalinta koowaad kaga soo baxay Denmark ayaa badisay leeyahay 6 kamid ah 10kii kulan ee ugu dambeysay halka Wales kaliya ay badisay 4 jeer Wales ayaa laga yaabaa in ay lumisay leeyahay kulan tartan rasmi ah markii ugu horeysay tan iyo bishii June 2019 xulka qaranka kubadda cagta ee Denmark ayaa ku guuleystay Euro 29kii waxayna ku dhameysteen kaalinta afraad mar kale 1964kii waxayna sidoo kale gaareen semifinalkii 1984kii laakiin tan iyo waa markii ugu horeysay oo ay ka soo muuqdaan wareegga isreebka Euro tan iyo 2004 waxayna guuldaro 3 waxba ay ka soo gaartay xulka qaranka kubadda cagta Czech Republic wareegga 8-dhamaadka kulan tartan ka tirsanaa Euro laacibka xulka qaranka kubadda cagta ee Denmarkna wuxuu noqday gool laliyihii ugu da'da yaraa ee Denmark tartan weyn
oo ka dhan tartan weyn laacibkan waxa weeyaan Michael wuxuu kaliya waxa uu jiraa 20 sano iyo sidoo kale 353 maalmood laacibkan Denmark ka tirsan waa laacibka ugu da'da yar ee tartan weyn kaga soo muuqday ee sidoo kale goolasha ugu badan ka dhaliyay laacibkaas waqti fiican oo ku qaadanaya xulkiisa qaranka kubadda cagta waan arki doonaa natiijooyinka ka soo baxa kulamadaasi hal iyo laba wararka suuqa hadii aynu fiirinana wili daafaca kooxda Real Madrid Rafael Varane wuxuu kooxdiisu ku cadaadinayaa in laga fasaxo garoonka Real Madrid waxaana uu doonayaa laacibka inuu qabto garoonka Old Trafford ee ku ciyaarta kooxda Manchester United laacibkan halka dhibaato ay kala kulmi karto waxay tahay isbuuclaha laacibkan mushaaraadka uu qaato oo kale waxa uu qaataa 400,000 oo qaata isbuucii laacibkan marka Manchester United waxa laga yaabaa in taasi dhibaato ay ku noqoto Manchester United wararkeedu hadii aynu sii fiirinana waxay ku sii dhawaanaysaa leeyahay saxiixa garabka ka ciyaaray Jadon Sancho 22 sano jirkan ayaana kooxda BVB ama Borussia Dortmund waqti cajiib ah ku qaatay inkastoo waagiisii hore laacibku uu ka hana qaaday gobolka Manchester hadda kooxda Manchester United laacibkan wixii muddo la xiriiriyaba hadda way ku sii dhawaanaysaa leeyahay 22 sano jirkan xil ciyaareedka soo socda in garoonka Old Trafford xidigaha ku ciyaaraya qayb uu ka noqdo laga yaabaa gudahaan waa naga inta maanta barnaamijka ciyaaraha tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaynu ku kulmi doonaa maana Allah